dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ku dishay ku dhawaada 100 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab kadib weeraro ay Jimcihii iyo Sabtidii la soo dhaafay ka fuliyeen deegaanada Al-Shabaab kaga sugnaayeen gobolada Bay iyo Shabeellaha Dhexe. Samed Reho oo ah afhayeen u hadashay militariga Mareykanka ayaa sheegtay in weeraradani ay fuliyeen diyaaradooda gaarka ah sidoo kalena ay jiraan weeraro dhanka dhulka ah oo ay ka caawiyeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliyeed. afhayeenku waxaa intaa ku dartay in meelaha ay bartilmaameedsadeen ay ku shirayeen dagaalyahanada Al-Shabaab ayna ku jireen saraakiil sarsare. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa saaxiibada Soomaaliya ay ka fuliyeen gobolada Shabeellooyinka iyo sidoo kale Jubbooyinka ayna ku dileen 81 qof oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa saaxiibada ay howlgallo ka fuliyeen gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale Jubbooyinka ayna jiraan khasaare loo geystay Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah goboladaasi sida uu hadalka u dhigay. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay dhaqdhaqaaq ka wadeen gobolada Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose waxayna howlgalladaasi hordhac u hayeen duulaanka dowladda Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wiiqdo awoodda Al-Shabaab oo wali gacanta ku haysa dhulka ku hareeraysan caasimadda Muqdisho. xukuumadda Donald Trump waxa ay ku tilmaantay koonfurta Soomaaliya goob dagaal isla markaana awood u siisay saraakiisha ku sugan African Command inay u madax bannaan yihiin amarada ku aadan duqeynta diyaaradaha Mareykanka ay ka geystaan koonfurta Soomaaliya.